soo dhawaada mar kale khiyaarta nala socota wali waxaynu ku guda jirnaa tabinta tooska ee caawa aanu ku eegayno gobolka bariga dhexe dagaalada oo daqiiqad walbaba sii cuslaanaya markaad eegto sida ay wax u socdaan iyo waliba duqeymaha oo ka sii daraya daqiiqadba daqiiqada ka dambaysa haddaba xogta aan barnaamijkan idinku sheegi doono waxaa ka mid ah khiyaarta ay nala socotay Israel ayaa waxa ay ku dhawaaqday caawa in ay labalaabayso duqeymaha iyo waliba bartilmaameedyada ka dhanka ah nidaamka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. Dowladda Britain waxay sheegtay in ay darsayso xaaladda gacanka Hormuz isla markaana laga yaabo saacadaha soo socda halkaas inay u diraan diyaarado dagaal. Duqeymaha ayaa laga soo sheegayaa wali in ay ka dhacayaan qaybo ka mid ah gudaha wadamada Carabta iyadoo la bartilmaameedsaday sida ay warar ku sheegayaan goobo kala duwan oo ka mid ah wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta waxay sidoo kale tilmaamayaan ciidamada gaarka ah ee dowladda Iran in ay duqeeyaan saldhigga Mareykanku ay ku leeyihiin gobolka bariga dhexe dagaalkii badda ayaa bilowday marka si cad loo eega hadda sida ay wax u soconayaan iyadoo saacadihii ugu dambeeyana la soo warinaya dhaqdhaqaaqyo ka soconaya badweynta Hindiya iyo waliba qaliijka Cumaan halkaas oo dhinacyada dagaalamaya ay dhowr jeer isku weydaarsadeen madaafiic iyo sawaariikh kala duwan haddaba maxaad ka taqaanaa awoodda ciidamada dowladda Iran ee xagga badda saldhigyada ay leeyihiin tiradooda doonyaha iyo maraakiibta ay haystaan iyo waliba waxaan kula wadaagi doonaa inta gujisa ay ku howlgalayaan ciidamada dowladda Iran caawa oo ay dagaal adag wajahayaan ciidamadaasi sida khubaradu ay tilmaamayaan dunida koonfurta maxay uga aamuseen dilkii loo geystay Ayatollah Ali Khamenei urur goboleedka ama ururka loo yaqaanay BRICS ee sida weyn uga soo horjeeday dhinaca reer galbeedka ma waxay ka dhigan tahay dagaalkan inay ku qoos qaateen oo aysan marnaba suuragal ahayn inay ka hortagaan dowladda Mareykanka qodobadaasi iyo warar kale ayaan ku faaqadayaa barnaamijkan khiyaaray soo dhawaada ku soo biiray YouTube-ka oo subscribe saara waa 15 bisha Maarso sanadka 2026 waa barnaamij ka mid ah qubanayaasha caawa iyo faaqidida wararka dagaalka ee gobolka bariga dhexe ee ka soo cusboonaaday ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar sida ay hadda qoraysaba telefishinka Al Jazeera waxaa lagu soo waramayaa in holac iyo waliba qiic xoog leh laga dareemayo galbeedka magaalada Baghdad ee caasimadda wadanka Ciraaq halkaasi oo la sheegay in diyaaradaha iswada ee droniska ay duqeyn ka geysteen telefishinka Al Jazeera ayaa arrintan si gaar ah u qoraya waxa uu leeyahay wali ma cadda goobta ay ku dhacday diyaaradaasi laakiin warar soo baxaya waxay tilmaamayaan inay ahayd duqeyn ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran ay geysteen hay'adda warbaahinta Israa'iilna waxay caawa ku dhawaaqday ee kan la yiraahdo in nidaamku isku raacay in kor loo qaado weerarada kala duwan iyo waliba qalabka militariga ah ee lagu adeegsanayo dagaalka taas oo qiimihiisa uu gaarayo $100 bilyan oo dollarka Mareykanka isla markaana dowladda ay bilowday baa la yiri waa Israa'iil nidaamkaasi in ay soo iibsadaan hub iyo waliba qalab loo adeegsan karayo dagaalka oo degdeg ah wargeyska Telegraphna waxa uu qorayaa caawa dowladda Britain inay ku dhawaaqday in kumanaan ka mid ah diyaaradaha iswada ee droniska loo diri doono gobolka bariga dhexe arrintan oo muujinaysa dagaalka in uu sii xoogeysanayo marka la eego guud ahaantiiba xiisadu meesha ay haatan taagan tahay tani waxay ka dhigan tahay baa la yiri in lagu ilaaliyo marinka Hormuz iyo waliba maraakiibta halkaasi maraysa go'aankan waxa uu ku soo aadaya iyadoo madaxweyne Trump caawa uu ku dhawaaqay galinkii hore in dowlado fara badan oo ay ka mid tahay Britain ay ciidamo iyo qalab military iyo waliba maraakiib ay u soo diri doonaan halkaasi waa marinkan istiraatiijiga ah ee Hormuz oo laga baqayo dowladda Iran in ay xirato taliska dhexe ee ciidamada Mareykankuna waxay ku dhawaaqeen in ay labalaabeen awoodda xoog leh oo ay ku garaacayaan gudaha wadanka Iran waa sida ay leeyihiin waxaynu doonaynaa mandiqada gobolka bariga dhexe oo noqota mid degan oo xasiloon iyo waliba qatar aan looga baqayn bay yiraahdeen dowladda Iran inay halkaasi ka dhalato
isla markaana kor loo qaadayo guud ahaanba xasiloonida geeska gobolkaasi. ururka lagu magacaabo xisballah ee wadanka Lubnaan goor dhaweyd war ayuu soo saaray waxay leeyihiin gantaal cruise ah oo waliba cluster ah ayaynu ku duqaynay qaybo kala duwan oo ka mid ah dhulka Falastiiniyiinta ee Israa'iil ay gacanta ku hayaan, taas oo muujinaysa in saacadba saacadda ka dambaysa xiisadu ay isbedeli karayso. caawa habeenkii 16 ayuu galay dagaalkan u dhaxeeya Iiraan iyo waliba dhinacyada isbahaysanaya ee Mareykanka iyo Israa'iil, waxaana uu u muuqanayaa dagaalka in ilaa iyo hadda wax libina dhinacyadu ay ka keeni laayeen weerarka ku jiteeyay dowladda la yiraahdo Iiraan. saacadihii la soo dhaafay waxaa soo baxaya markabka Abraham Lincoln inuu ka baxay gobolka Bariga Dhexe isla markaana ay soo gaareen waxyeelo kadib markii sawaariikhda dowladda Iiraan ay waxyeelo gaarsiiyeen, sida qaybo ka mid ah warbaahinta galbeedku ay ku warameen saacadihii la soo dhaafay. haddaba iyadoo taasi taagan tahay waxaa iminka muuqanaya inuu kor u sii kacayo dagaalka dhinaca badda ee u dhaxeeya dhinacyadan gobolka Bariga Dhexe xilligan ku loolamaya. haddaba maxaad ka taqaanaa saldhigyada ciidamada badda ay leeyihiin dowladda Iiraan, tirada ciidamadeeda, gujisyada ay ku howlgalayaan, maraakiibta dagaalka iyo waliba awoodda ay u leeyihiin in ay gobolkan ku loolamaan? telefishinka Al Jazeera qaybtiisa afka Carabiga waxa uu leeyahay saldhigyada ciidamada badda ee Iiraan ayaa ah tiirarka ugu waaweyn oo ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee istiraatiijiyada difaaca iyo amniga qaranka ee wadankaasi, iyadoo ay ku yaalaan baa la yiri laba aag oo juqraafi ahaan muhiim ah, waxaana ay kala yihiin waqooyiga dalka oo ku teedsan xeebaha wadankaasi iyo koonfurta oo ku teedsan baa la yiri gacanka Carabta, gacanka Cumaan iyo marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz, sida ay khubaradan tilmaamayaanba. Al Jazeera wax u falanqaynaysa saldhigyada ugu waaweyn ee ciidamada badda ee Iiraan waxa ay ku yaalaan koonfurta dalkaasi, gaar ahaan magaalada la yiraahdo Bandar Abbas oo ah xarunta ugu weyn ee ciidamada badda Iiraan iyo sidoo kale ciidamada badda ee ilaalada kacaanka Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan. dalka Iiraan waxa uu leeyahay laba ciidan badeed oo kala duwan oo kala amar qaata, isla markaana mid kasta uu leeyahay taliyihiisa iyo waliba saadka iyo qalabka ay ku howlgalayaan. mid waxay si toos ah u hoos tagaan ciidamada ilaalada kacaanka oo si gaar ah u abaabulan markaad fiiristo sida ciidamo qaran uu leeyahay oo gaar ah, iyo ciidamada militariga waaxda badda oo si gaar ah halkaasi uga howlgalaya. ciidamadan ilaa iyo 4 howl oo kala duwan ayay u qaabilsan yihiin dowladda, waxaana ay kala yihiin difaaca xuduudaha qaranka ee dhinaca badda, in la ilaaliyo kheyraadka badda ku jira ee dowladda Iiraan, xaqiijinta madax banaanida qaranka ee biyadhuleedka ay leeyihiin, iyo ilaalinta danaha dhaqaale ee Iiraan ee xagga badda ku wajahan. afartaasi istiraatiijiyad ayay ku shaqaynayaan ciidamadan. sidoo kale sida ku cad qiimeynta sanadlaha ah ee majalada arrimaha militariga iyo awoodaha dowladaha ka faalloota ee Global Firepower, waxay dalka Iiraan ku tilmaantay ciidamadiisa badda inay yihiin dalka 37 ee ku jira 145 dal ee adduunka ah ee majaladaasi qiimeynta ay ku samaysay. ciidamada badda ee dowladda Iiraan ayaa kaliya gaaraya tiro ahaan 18,500 oo askari, waxaana ay ku hubaysan yihiin ilaa iyo 100 markab oo military oo kala duwan oo wadankaasi ka howlgala. waxay leeyihiin 19 gujis oo ka mid ah maraakiibta gunta hoose ee badda quusa, 20 markab oo roondo samayn kara oo ciidamo lagu qaado, 7 ka mid ah maraakiibta loogu talagalay in ay wax jeedaan haddii badda mid ka mid ah maraakiibta ay wax ku soo gaarto, iyo 3 maraakiiba oo nooca ugu casrisan ee dheereeya ka mid ah. sidoo kale khubaradu waxa ay tilmaamayaan in ciidamada baddu ay leeyihiin qalab aad muhiim u ah oo si degdeg ah wax uga hortagi karaya, waxaanay ka mid ah baa la yidhi maraakiibta ciidamadaasi ay isticmaalayaan oo muhiim ah. haddaba ciidamadan goorma ayaa la aasaasay, quwadoodana maxaa lagu tilmaamaa? taariikhyahanadu waxay sheegeen in dhismaha awoodda badda ee ciidanka kacaanka islaamiga ah dhidibada loo dhigay sanadkii 1979 markaasi oo ay Iiraan soo iibsatay baa la yidhi maraakiib iyo qalab military oo ka yimi dalalka Yurub sida Britain, Jarmalka iyo waliba dowladda Talyaaniga. intii lagu guda jiray dagaalkii Ciraaq iyo
u dhaxeeya dowladda Iiraan sanadkii 1980 ilaa 1988 dhacayay. waxaa sidoo kale dhacay waxa loo yaqaan dagaalka maraakiibta shidaalka oo labada dhinac waxay bilaabeen in ay si weyn ugu loolamaan badda iyagoo midba midka kale uu sameeyo in uu ka waxyeeleeyo maraakiibtiisa shidaalka qaada ee badda maraya. laakiin dowladda Mareykanku waxay tilmaantay in mid ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ee ciidamada badda ee dowladda Iiraan ay duqeeyeen. saldhigaasina waa kan ku yaala Bandar Abbas iyadoo sidoo kalena xalay la duqeeyay jasiiradda Qraq oo kamid ah jasiiradaha ugu muhiimsan ee ciidamada badda ee dowladda Iiraan ay isticmaalaan. Trump ayaa dhowr jeer oo hore oo kala duwan waxa uu tilmaamay in ciidanka badda ee dowladda Iiraan guud ahaantiiba la burburiyay. tan iyo wixii ka dambeeyay dilkii Ayatollah Ali Khamenei loo geystay 28 Febraayo aynu ka soo gudubnay waxay su'aali ka taagan tahay halkay ku dambeeyeen wadamadii BRICS ee dowladani ay ka tirsanayd. maxayse ilaa iyo hadda uga jawaabi laayeen in wadankaasi ay garab siiyaan. qaar ka mid ah qobarada taxliilinaya arrimaha dagaalku waxa ay tilmaamayaan in wadamadaani hadda ay u muuqdaan inay qoys qaateen. warbixin siyaasadeed oo qoray falanqeeyaha lagu magacaabo Dr. Karim Al-Majri ayaa iftiimiyay su'aalo waaweyn oo ka dhashay xaaladda cusub ee siyaasadda caalamka gaar ahaan kadib xiisadaha la xiriira iyo Iiraan iyo falcelinta xadidan ee dalalka ku midaysan urur goboleedka BRICS. 4 bishii Maarso 2026 markab dagaal oo Iiraan leedahay oo lagu magacaabo Iris Dina ayaa la sheegay in uu ku degay badda u dhow xeebaha Sri Lanka isagoo ka soo laabtay tababar heer caalami ah oo loo yaqaanay Milan 2026 oo ay martigeliyeen ciidamada badda wadanka Hindiya ayna ka qayb galeen in ka badan 70 wadan oo ciidamadooda badda qayb ka ahaa. wararku waxay sheegayaan in markabka uu ku dhacay weerar culus oo uga yimi dhinacyada hadda dagaalka kula jira dowladda Iiraan taas oo sababtay in uu quuso markii ay dhacdadan haleeshay. kooxda gurmadka degdega ah bixisa ee Colombo ayaa durbadiiba qayladhaan u dirtay wadanka Hindiya si ay uga jawaabaan dhibaatooyinka markabka soo gaaray. howlgalkaasi waxaa laga badbaadiyay 32 askari halka 87 meyd ahna durbadiiba la helay. askar kale ayaa la sheegay in la waayay waxaana ugu dambeyntii tirada askarta dowladda Iiraan ee markabkaasi ku qurbaxay lagu sheegay 104 askari. inkastoo Hindiya ay ka qayb qaadatay samata bixinta haddana falcelinta siyaasadeed ee dalalka xubnaha ka ah BRICS ayaa waxay u muuqdaan kuwa xadidan. wasiirka amuraha dibadda ee dalka Hindiya ayaa ku tilmaamay quusida markabkaasi mid aad looga naxo walow uusan sheegin waxa markabkaasi haleelay. dalalka sida Ruushka, Shiinaha iyo Brazil ayaa si cad u cambaariyay weerarka waxaana ay ku sheegeen inay ka dambeeyeen Mareykanka iyo Israel halka dalalka BRICS ka tirsan ay doorteen oo kaliya in ay war saxaafadeed soo saaraan oo aysan u gurman guud ahaanba wadanka Iiraan. falanqayntan waxa ay dhalisay baa layidhi su'aalo ku saabsan awoodda dhabta ah ee waxa loo yaqaano koonfurta adduunka ama Global South oo muddo dheer loo arkayay in ay noqon karto miisaan ka hortagi karaysa awoodda siyaasadeed iyo military ee dalalka reer galbeedka. marka la eego dagaalada dhacayay iyo waliba xiisadan halka ay maanta taagan tahay waxa ay sawiraysaa wadamadan in aysan hadda awood u lahayn in ay garab siiyaan dowladda Iiraan sida qubaradu ay ku taxliilinayaan arrintan. xaaladda amni ee adag ayaa lagu soo warramayaa gobolka bariga dhexe inay caawa ka taagan tahay iyo dhaqdhaqaaq ballaaran oo xagga siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ku salaysan. warar iyo xog cusub ayaa ka soo baxaya gobolka bariga dhexe waxaana ay muujinayaan korarka xiisadda amni ee gobolka iyadoo ay dhacdooyin kala duwan la soo sheegayo daqiiqada ka dambaysa. wargeyska The Times waxa uu tilmaamayaa in Britain ay wada hadallo la yeelato xulufadeeda iyo waliba la howlgalayaasheeda si loo hubiyo badbaadada maraakiibta ganacsi ee maraya marinka Hormuz. afayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee Ingiriiska ayaa sheegay in mid ka mid ah qorshayaasha la tixgeliyo ay tahay in la adeegsado diyaarado aan duuliyo lahayn.
dhinaca kale xafiiska warfaafinta ee Abudabi waxa uu ku warramayaa caawa in duqeymo kale oo culus ay la kulmayaan halkaasi. deegaanka Raweys ayaa lagu warramayaa in ay duqeyn haleeshay oo goor dhow kaliya lagu guuleystay in la damiyo dab iyo uura isqabsaday. dowladda Ciraaq wariye ka soo warramaya halkaasi oo Al Jazeera ka tirsan waxa uu leeyahay waxa la weeraray saldhig Mareykanku uu ku lahaa meel ku dhow garoonka diyaaradaha ee Baghdad. waxa la arkayaa olol iyo uuro. warbaahinta Iiraanna waxa ay xaqiijisay in qarax laga maqlay magaalada Shiraz ee koonfurta wadankaasi ku taala, taas oo la leeyahay waa dhibaatooyin ka dhalanaya duqeymo caawa Iiraan lagu hayo. ugu dambeyntiina wasaaradda caafimaadka wadanka Lubnaan waxay goordho xaqiijisay dhimashada 5 qof iyo dhaawaca 7 kale kadib markii Israa'iil ay weerar ku qaaday koonfurta dalkaasi gaar ahaan dhowr magaalo oo kala duwan. halka ururka Xisballahna ay ku dhawaaqeen in gantaal cluster ah ay ku duqeeyeen halka la yiraahdo Matula oo ka tirsan waqooyiga Israa'iil dhulka Falastiiniyiinta laga haysto. ikhtiyaarteena la socota ay tabinta wararkan iyo wixii ku soo kordha baahinteena kale ayaan idinkugu haynaa. ku soo dhawaada YouTube-ka oo subscribe saara oo mahadsantiin.